maanta abaaro shantii saac waxaa qarax ka dhacay degmadan aan ku sugannahay oo kaxda agagaarka siinka dheer. qaraxaasi wuxuu ahaa qarax aan in adigu muddo daba joognay ilaa 24 saac xilli ka horeeya aan daba joognay oo xalay iyo shalay iyo saaka aan howlgal ka galnay ereyadan ilaa iyo annaga iyo ciidanka booliiska iyo maamulka iyo shacabkuba ay daba joogeen. gaarigaas informationkiisa waxaan soo gaarsiiyay shacabka iyo maamulka degmada. muddadaas ilaa xal oo dhan halkaan aan joognay. saaka markii aan ogaanay ereyada uu ku jiro waan cayrsanaynay, waan daba joognay. mar allaala markii aan aragnay ayuu bacaadkan galay. waa garanaysaanoo in badan baa la iska daba meermeeraysanayaa. meeshu waa xaafad, meel walba mar allaala markii laga soo xiro meel walba laga hareereeyey. ciidamada nabadgelyadu ay in badan maaragtaa ay qabteen iyo maamulka degmada iyo shacabka oo iskaashanaya. halkaan uu soo galay mar allaala markii waa halkaan soo galay oo aan ka soo daba galnay oo aan aragnay oo uuna arkayna qaraxaana dhacay. ummadda ilaahay baa ka badbaadiyey. in badanna maaragtaa xaafadaha wargelinay. maamulkuna in badan buu maaragtaa ka qayb qaato xaafadda wargeliyo uu yiri maaragtaa waxaasaa jire bal halays ogaado oo la aruuray. qaraxu sidaas uu ku dhacay ilaa shalay iyo xalay iyo saakana howlgalka gaarigaan aan ku jirnay. ilaahay mahadiis shacabka iyo maamulkana aad uga qayb qaatay oo aad maaragtaa uga shaqeeyay. qaraxaanu sidaas uu ahaa. laba wiil oo yaryar baa waday. labadii wiil midna waa uu ku dhintay, midna waa uu fakaday. asagiina waxaan rajaynaynaa inuu mar dhow gacanteeda soo galo haddii ilaahay idmo. maamulka gobolka Banaadir maamulka degmada aan dhex joogno ku guuleystay iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo aad ogtiin in saaxiibka ugu dhow ee bulshada Soomaaliyeed in ay yihiin inay u bareereen in ay ka hortagaan khataraha ay maleegayaan arxan laawayaasha duulaanka ku ah dadnimada iyo dawladnimada Soomaaliya. waa u digeen qaybaha bulshada Soomaaliyeed. maamulka degmada waxa u suurto gashay in ay badbaadiyaan marka laga reebo qasaaraha yar ee dhabarkeena ka muuqanaya. naftii haligihii mas'uulka ka ahaa ama watay gaarigan la doonayay in lagu waxyeeleeyo shacbiga Soomaaliyeed isaga naftiisa ku baxday marka laga reebo ciidamadeena gaar ahaan booliska oo ku dhiiraday iyo maamulka degmada inay ka hortagaan oo askari ka tirsan si uu shacbiga Soomaaliyeed u badbaadiyo ay ka soo gaartay dhaawac yar. waxaan ilaahay uga baryaynaa in uu caafimaad degdeg ah siiyo. waxaan rajaynaynaa annaga oo kaashanayna awoodda ilaahay iyo tan shacbiga Soomaaliyeed inaan ka guuleysan doono arxan laawayaasha ama argagixisada dhiigga ka daadinaysa shacbiga Soomaaliyeed. halka aan taagannahay waa ka duwan tahay goobtii toddobaadkan aan taagnayn ee bartamaha magaalada Muqdisho. waxaad arkaysaan in ciidamadeenu ay u bareereen isaga oo roobka da'aya, iyaga oo qorraxda aad arkaysaan ku shaqaynaya in ay ku dadaalaan sidii ay shacbiga Soomaaliyeed u badbaadin lahaayeen. warbaahinta waxaan gaar ahaan uga mahad celinaynaa guud ahaan intii garatay in ay goobtan soo gaaraan si ay marqaati uga noqdaan waxa aan shacbiga u sheegayno, si aan uga run sheegno dhacdooyinka ka dhacaya. maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaheeda iyo gudoomiyayaasha waaxaha iyo taliska ciidanka booliska ee degmada kaxda waa u mahad celinaynaa. gaar ahaan wad arkaysaan ma jiraan haba yaraatee waxyaabaha ay adeegsadeen. waxaan rajaynayaa inaad aragteen waa wax homemade guryaha materialiska lagu sameeyo si shacbiga Soomaaliyeed yani loogu dhibaateeyo. gaarigan waa ka warhaynay, shacbiga Soomaaliyeedna waa ku wargelinay. dadaal dheer kadib wuxuu soo galay si uu uga leexdo goobaha uu uga shakisan yahay in ciidamadu ay joogaan. goobta uu ku qarxay oo ah halka aad arkaysaan oo aad nala taagantiin oo xaafad dhexdeed ah isagoo aan wax dhibaato ah geysan marka laga reebo wax shacbiga Soomaaliyeed ay ka kaban karaan. waa idin mahad celinaynaa. waa mahadsantiin maamulka degmadana waxaan leenahay halkiina ka wada halganka aad ugu jirtaan sidii shacbiga Soomaaliyeed aan uga xoreyn lahayn. ilaahay baa ku mahadsan
ما بعد الله الله خالقه خسارها هي دبعتها نول بأمليجو إلهي أيان نول بكسرية واد أركتان دبك دعي أفيانك يتليه بواشجين runtii baabuurka sidoo ay taliyaha iyo afayeenku ba sheegeen waa in badan baan ku daba jiray markuu meesha galay waxa yimid ciidanka waaxda markay yimaadeen way isqaybiyeen qaybina dhinacan hore ka istaageen qaybina dhinaca dambe ka istaageen markay arkeen inuu ciidan u yimid baa nin kamidi macawis buu qabay wuxuu ku cararay eeriyadan godka hoose ciidankuna markaa way yaraayeen ma aysan badnayn in yaroo gaaban oo macawis qabo ahaa iyo funaanad cagihiisu wax ka deekay kale uu dhawaaqay wuxuu yiri waaba ii timaadeene haye soo diyaar garooba ii imaad marka intaas dhacday waa la is arkay in marka meesha la isku hayo waxaan seef gareynay markaas inaanu bulshadii shacabka ahayd xaafadda deganeyd aanu la hadalno inaan degdeg meesha ha looga baxo inta bulshadii la seef gareynayay laga baxayay waqtigiiba wuxuu go'aansaday inuu isagu markaas uu dhibaatadan uu geysto haddaanan markaaba degdeg aan loogu gudigi lahayn bulshada oo aanan u digilayn inuu baabuurku qaraxsido dad badan iyo dhibaato badan baa ka dhici lahayd awalan horta saasa kaliftay inay khasaaruhu uu yaraado ilaahay baa qadaray inay khasaaruhu uu yaraado oo intii markaa wadoon ay ku koobnaato laakiin dadaal badan bay ciidankii degmada iyo maaragtay ciidanka nabadgelyada oo aan kala harin haday tahay nabad sugid iyo haday tahay bileys iyo haday degmo tahayba ayaa maaragtay ku guuleysteen in oo ku koobnaado guryaha iyo dadka dan yarta burburay ay maaragtay 6 guri ee iska soo horjeeday ay baabeen guri aan lagu jirin oo dadku aysan gudihiisa ku jirin inkastoo ay caruurta ay u maqnaayeen iskool iyo maaragtay dugsiyo quraan iyo wax ku maqnaayeen haddana hooyooyinka iyo waayeelada iyo haweenka guryaha ka shaqeynayay way joogeen nasiib wanaag ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baanan uga mahad celinaynaa gaarigu wuxuu ahaa gaari yar oo Premier bacaadku galay bacaadkaana ku soo gaarnay sida daraadeed baanu ilaahay uu noogu sakhiray anagoo daba joogno isagoo bacaadka ku jira aan ugu nimid marka waxaanu isleenahay ujeedadii uu lahaa ma uusan gaarin mana uusan ilaahay baanan maaragtay ayaan uga mahad celinaynaa anaguna waxaan ku guuleysanay inuusan maaragtay meeshaasi uusan khasaaro inta ka badani uusan ka dhicin aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa bahda saxaafadda iyo afayeenka gobolka iyo taliyaasha maaragtay na soo booqdeen nala soo gurmaday runtii sitimaankii ka horeeyay ayaa shil kale ka dhacay eeriyadan oo ay laba askari oo degmada ka tirsan ayay waxyeello ka soo gaadhay iyaga oo midna waaxda ku dilay midna habeenkii kale ka dambeeyay ay dileen meeshan baa fal dagaal ayuu nagu dhaxmaray marka waa bariyahan waa wax soo nagu soo noqnoqonaya weeye waxaan rajayn doonaa ilaahay idamkiisa baarkigaasi mar walba yaalay inuu